macadka imaam shaafici aan ku furan doono goordu aayadaha quraanka kariimka oo inoo soo jeeday sheekh Soocane Cabdi Mursal ku soo dhawaada si ay inoogu furanta xafladeena sheekh Soocane tafadal kuwii kaga badbaadi lahaa China groupka iyo dhibaatadan taagan ilmo aan diin lahayn waxa weeye waa ilmo ebera marka waan isla qaadanay dal iyo dibadba qurba joogtana waan faraynaa fariimahaas dalalka ay ka yimaadeen inay kula noqdaan oo ay mataqaanaa u istaagaan innagana waa mid ina huran oo la rabo inaan taageero buuxdo heel yahoba ilmaha inaan geeyno nin walba ilmihiisa horta inuu keeno dhaqaalana aan la garab istaagno fiigana in la kordhiyo waan la qabaa sidoo hadda sheegay Axmed Shuuri oo kale sababta marka ilmaha wax laga bixiyo dadkan lacagtay fiirinayaan shilin badan baan bixiyay cunugu iyo wax baro inay dhahan baa laga yaabaa lacag badan baan bixiyay laakiin haddii bilaash laga dhaw wayba tayadii waxay u maleynayaan ba meel aan waxba ka jirin korontadii baa inaga tagtay waqti xun oo kulul waa lagu jiraa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan qadaynaynaa salaadiina waan tukanaynaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا ريال ما دام ضد المسلمين على المحي وحان مركه عندي لها أما سويت شيء لها نفتي يتين وإلها كعبسنا عبسد إلهي بأن نور ونكسن آخرية دوم الوهلة waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto iyadoo mawduuca iyo ajandaha lagu talagalay ugaarkiisa yahay muslimiin maadaama nahay waxaan ugu soo aadaa bisha Ramadaan ee khayrka badnayd bisha Ramadaanna waa rukni min arkaan islaam in la islaamo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum aayad kale waxay ahayd shahru ramadaana aladii unzila calaykum ينزل فيه القرآن بشهر رمضان مكة إلا الصوم والركن من أركان الإسلام نوينا عليه الصلاة والسلام حديث باب الحكوري بني الإسلام على 5 إسلام كالشنبه على أول شيء شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان بشهر رمضان الله الصوم وحكم دي هاي من أركان الإسلام بكمدية تيرش إسلام ك إلى أنتي أما لا أنت الإسلام ما أين تشرين بكمدية وأنا وش أدني هاي مدة شنبري مسا وبنا شنبري يعني نجاح يعني رحكته بيشا وحبها أنت إن لو ديار قلوب أنت نولي وادتك هو جامياشة واسيدي يسرادينتي وحجرتك أقوياك أمدوي أمد أستاد كاسي هداي هرمود النقدان وحي هرمود أقول نقدان وحوف عن إن الدين تحقق نقد إن الدين تحقق كمارت هرمود أقول نقدنا وأنضف الدين تحقق وتشيدنا وأنضف كمارت الدين أنا نقدن أقدرنا إنه في عن إنه أمد النبي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بشهر رمضان قيمة بضم بين وسع وسعته أين أديار قرون سون كذا قفك بشهر رمضان سوى النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشهر رمضان قفك يسوما هو إيمان أسوما اسكسر ما هي ضدك الرع معها إيمان أجر الدونيس إلهي على القريب بأسوما قفك سوى الله الذنب لها ولا قاف يا النبي عليه الصلاة والسلام وحكر النبي عليه الصلاة والسلام وأمانك مداس سون كذا بشهر رمضان مانتنا عبادة إليها هبيكنا عبادة إليها هبين بدنا النبي وحوري من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه زيدا نكي بشهر رمضان هبين كذا
taraawiixda tukada oo qiyaamuleyl sameeya oo qur'aan akhriya oo tahaajud sameeya oo iimaan iyo ixtisaab u sameeya asna dembigiisii wax alla wixii hore baa la dhaafayaa waa admir bil maarta saasan nabi calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay awaluhu alraxma wa awsaduhu almaqfira wa aakhiruhu cidqu min annaar waxaa xagga hore waa naxariis xagga dhaxana waa dembi dhaaf meesha u dambaysana waaba aad iyo aad baad mahadsantihiin mawduuci kale ee xafladda lagu talagalay baan oga baxayaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد وحاج عليه السنة waalidiinta meesha yimid anoo u mahad celinaya marka koobaad iyo akhyaarta timid dhammaan salaadiinta iyo ugaaska iyo akhyaarta dhan iyo qurba joogta iyo martida sharafta kale timida lagu marti qaaday ka soo qayb gashay aad bay u mahadsan yihiin waxaan jeclaysanay inaan intaan salaadiinta iyo ugaaskiya aysan hadlin information ama akhbaaraad aan ka horraysiino ku saabsan ahwaasha aynu maanta halkan isugu nimid ujeedkan meeshan isugu nimid baan rabnaa marka inaan caddayno laba qaybood buu ka kooban yahay anu qaybta koobaad baan caddayn qaybta labaadna sheekh cabdullaahi baa insha allahu tacaala caddayn doona maadaamuu yahay maamulihii iskuulka imaamu shaafici ujeedkeenna isugu nimid waxa weeye iskuulkaad wada garanaysaan magaciisana la yidhaahdo macadkii imaamu shaafici la soo aasaasay ama la dhagax dhigay 2013 ay dhagax dhigeen culimadii waaweyneed ee Soomaaliyeed oo ka mid ahaa sheekh maxamed shibli iyo raxmatullaahi calayhi alwaalid الشيخ الفاضل شيخ عبد الله عمر نور رحمة الله عليه إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس هجيو معك دقيقة دقيقة لبدا كون يصدح يتبنكي ومقعيس اللورنجر إمام الشافعي هذا اللي يلاهدو معك كاسي دقيقة دقيقة كدب وها أساس يقندقوها سيدي هذا كور بين الصوبة قادني جالية Soomaaliyeed ee Reeshabelle jaaliyada Soomaaliyeed ee Reeshabelle markaan Soomaali leeyahay qoys ma dego Soomaali badan baa degta jaaliyadaasi waxa u xoog badan ama majority waa jaaliyada Tolomuge laakiin muslimiin badan oo Tolomuge ahayn Soomaalin ahayn baa ka qayb qaatay dhismihiisa qaarkood cadaan yihiin oo cascas yihiin oo midabkooda uu maartay Faranji yahay إذن جالية تولوموغي هدي ساوث أفريقيا جوجتي يا هدي قربها مالها قالوا ينكبا أي جوجين كنتي قيمتي هوري لصور دسي وحي كأهاين هالبولة أما لفدبر بي كأهاين ساد ويدين معك ياسي مكلا رياح دي لبكون يصدح يتبنكي وحو دمايسترمي إلا لبكون يافر يتبنكي أيو دمايسترمي قيمتي سي هوري isla 2014 qaybtii dambaan furray 3 bilood markay caruurtu dhiganaysay saad la socoteen waxbarasho tayalana uu bilaabay macadku maadaama uu san jirin macad yaani dugsi sare ah hadii la yiraahdo dugsi hoose dhexe waxa jira Shabeelle oo isagana ummadda qayb weyn oo libaax u keenay ummadii ragii asaasay gacanta ku hayay culimadu ku haysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkooda ajazeeyo khayr Allah ku jazeeyo ka dugsi saraha maadaama Shabeelle uu yahay galaaska sideedaad baa waxaan goosanay macadku ardada Shabeelle ka soo baxda inay hesho meel ay si waxbarashadooda ku sii wataan sidaa darteed baa waxa macadkii aan isla garanay inaan dugsi sare ka bilowno dugsi saraanu ka bilownay 3 bilood markuu socday waxbarasho tayalana ay meeshaasi ka socotay waa kii macadkii la xidhay oo madaxweynihii waqtiga ayada joogay waa kii uu sharaystay ee uu xidhay waxbarashadiisina halka ay ku istaagtay iskuulkiina uu la wareegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu nasrigiisu yimid
iskuulkii nasrigiisii la helay waxaan haddana go'aansanay kajaaliyad ahaan inaan dalkii iyo dadkii aannu u dhalannay aannu wax ku soo siyaadinno waxbarashadii aan halkii oga sii wadno annagoo ka fikirray wax badanna celcelinno isla eegnay gobolka Shabeelle maanta inuu u baahan yahay waxbarasho tayo leh idan marka iskuulaadka bareefadka sida Shabeelle inuu ku yaal halka iskuul Shabeelle iskuul bareefada inuu ku yaalo gobolka Shabeelle waxaan marka istusnay inay munaasab tahay meel ummadii ama caruurteeni ay waxbarasho tayo leh ay ku sii qaadato siyada 22kiina waa furay iskuulkii oo waa shaqo gelin iyadoo ay ka shaqeeyaan 13 ruux 13 ruux waa mucallimiintan sidii way ugu tayo badan yihiin gobolka Shabeelle iyadoo qabiil loo eegin mandiqo gooni ay gobol gooni ka yimid aan loo eegin qaar baa af Soomaaliya aqoonina ku dhashay alxamdulillah mucallimiintii markii maanta way ka shaqeeyaan waxaa ka shaqeeya dad u qaabilsan xagga nadaafadda waxaa ka shaqeeya dad waardiye ah oo habeen iyo maalinba isbedela waxaa ka shaqeeya maamulkii guud ee iskuulka iyo maartay headmasterhiisiiba dadka marka shaqaalaha oo gobolka Shabeelle dhammaantood ka yimid tayana lagu soo xushay baa ka shaqeeya dadkaasi macallimiinta ahaa kharash iyo mushaar baa ku baxo biil bay qaataan biilka isaga ah ma jira il gooni uu ka yimaad in isxil saartay oo isxil qaamtay baan ku bixinaa biilka isaga oo waa la bixiyaa ilaahay wali naguma ceebaynin ilaa haddana waa u sii taagannahay insha Allah ta'ala arinta inaan sii dardargelino sii xoogay ujeedka marka maanta idinku yeernay inaan warbixinta idin siino qaabka iskuulkii loo tayeyn lahaa iyo waxbarashadu iskuulku u baahan yahay iyo dhaqaaluhu u baahan yahay intaba inaan idin la wadaagno baan maanta idin martiqaadno idin casuumnay halkan idinku yeernay idan markii iskuulkii la furay sida uu yahay dhismihii guud ee iskuulka half baa dhisan 6 galaas baa iskuulka dhisan marka laga reebo 4 qol ama 4 galaas oo loo isticmaalo hal galaas oo ATM mooyeen xaruntii ama xafiisyadii iskuulku ku socon lahaa macallimiinta iyo ragga mas'uuliyiinta ay fadhiisan lahaayeen iskuulku marka wuxuu u baahan yahay ilaa 15 galaas oo kale waa u baahan yahay waxa kale oo isla raayeynay ama istusaynay inay muhiim tahay munaasabna ay tahay كل اسكول كولية هي علوم القرآن لجو برتو علمها سفي عن لجو تربية أو علمه أوسن كصابحين أو قيب داخلي له قسم داخلي له إن عن اسكول كأوسم إنه هذا أنود اسمه اسكول كمركة لعقت أكون بحسادات كقياسة أما اسمها يقان مركي عن دحجين وحن باهد اسكول كمان أنتصني دربيجي شكرنا على ركتين ما تباهده يسود سيء هاي يدبك كم مقدار وحيكون قياسين العكس هم بقولوا كون $1 بيس كهرين يكون بحيس سكول كمركز ساقع وحقوا أصلا سيدي باهدي سانو دبولي لهين إن نكشف قينو ومدة ماشى دقنا أن لو ذاقنو مسلمين تركود أما شبه الله هودش أما مسلم كود هون نقده inaan baahida iyada dhawaaqeeda inaan gaarsiino oo la wadaago lacagta marka iyada iskuulku u baahan yahay waa mid jeebadaheena ku jirto la rabo in walba inuu raadiyo annagu jadwal baan dejinay jadwalkan dejinay insha Allah ta'ala hadduu ilaahay ka dhigo bisha Ramadaan dhaxdeeda waxaan rabnaa dhowr iyo 10 dal inaan soo marro haddii ilaahay yiraahdo rag anaga naga mid ah waxay aadayaan North America oo Canada iyo Mareykan oo kale rag naga midana waxay hadda safar ka bilaabayaan oo Sheekh Cabdiraxiim ujeedka safarada loo galahay loo soo xawo iskuulkaas iyo dacwada guud ee magaalada guud ay wax qabadkeeda in la tayeeyo ummadda wacyi
wacyigooda iimaaneed iyo wacyigooda fikrad kor loo qaado waxaan marka ujeedku marka uu yahay inaad ogaataan calaa cilmina aad ku sugnaataan iskuulkan inuu yahay iskuulkiinnii inuusan iskuulkanna uusan lahayn qola mucayana ama urur mucayan iskuulkan waxaa iskale gobolka Shabeelle waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah ganacsatada oo weliba ugu baaqay ganacsatada inay iskuulka maalgeliyaan iyagana ay xukunkiisa iyo gacankuhayntiisa xataa ay qayb ka noqdaan ganacsatada hadda qaar ka mid ah iyaga wada meesha fadhiya habeenkii iyagaan ka wada hadlaynay iskuulkani marka gobolka Shabeellaha iskale waxaan caddaynayaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga fulinta iyo magaca guddiga sare labadaba ku hadlaya maanta iskuulkani inay leeyihiin muslimiinta degta gobolka Shabeelle shakhsi gooni ulana uusan jirin daa'ifo mucayana ama urur mucayan oo sheegan karaana ayaa iskale iskuulka isaga marka waxaan caddaynayaa inaad ogaataan iskuulka horta iskuulkiinnii inuu yahay oo uusan ahayn sida xanta meelaha la wadwado iskuul dad khaas ay leeyihiin annagu markaan u sacayayno iskuulka iyo waxbarasho tayo leh carruurtaanna oo wax noogu baranaysaay ma jiro dan kale oon ka leenahay leh dhaqaalaha idinka soo galo ma jiraan ujeeddadan ka leenahay waxa weeye in gobolkii aan ka soo jeednay inuu noqdo gobol xagga xadaaradda iyo thaqaafada iyo cilmiga ka dhisan oo carruur aqoon sare leh ay ka soo baxday in la helo waxaa weliba naga go'an haddii ilaah yidhaahdo jaamacaddiisiina inaan hirgelinno oon dhisno iskuulkaa markaan dhammaystirno iyo kullajka isaga inta jaamacadda markaan ka hirgelinayna carruurta iskuulka ka soo baxda masiirkoodu muxuu noqonayaa carruurta iskuulka ka soo baxda iyadana waxaa naga go'an ilmo kastoo iskuulkaa dhammeeyey inaan jaamacad la raadinno siduu jaamacad dibadda ku heli lahaana aan kala shaqayno hawshaana annaga aan tunka u ridayna haddii ilaa yidhaah jaamacaadka marka dibadda iyo kuwa waddankaba intaba inay maaragtay qaabilaan iskuulkuna waa iskuul ka diiwaan gashan oo ka sharciyeysan dawladda Itoobiya ee maanta aynu ku dhex sugannahay khaasatan dawlad deegaanka Soomaalida iskuul ka diiwaan gashan wasaaraddiisa waxbarashada weeye ma aha iskuul cilmi kale ama wax kale lagu barto manhajka dawladda ayaa iskuulka lagu bartaa manhajka dawladda waa uu la bareefadeeyay si waxbarashada tayo ay u yeelanto iyo ugaaska iyo ragga maartay mas'uuliyiinta meesha isugu yimid inay iskuulka soo booqdaan xilliyada waxbarashadu ay ka socoto oo ay eegaan waxbarashadu qaabkay u socotay ilmaha qaabka wax loo barahayo waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo tayada iskuulka iyo cilmiga carruurtu bartaan iyo qaabka ilmaha loo tarbiyeynhayo waxaan u daynayaa Sheekh Cabdallah oo ah madiirkii ama mas'uulkii iskuulka ah baan u daynayaa laakiin ujeeddadaydu waxa weeye inaan caddeeyo maanta uguna weyn iskuulka inuu yahay iskuul gobolka Shabeelle uu leeyahay dhammaan muslimiintuna ay wada leeyihiin cid gooni u sheegan kartaa iyo qabiil gooni u sheegan karaan uusan jirin waxaan ergaa ugu celinayaa inaan meesha ka saaro mugdiyo badan oo soo jiray oo ah iskuulkan horta inuu leeyahay ururlaya ururdiime malaha shaqana kuma laha waxaa kaloo meesha ka saarayaa iskuulkan iskuul qabiil leeyahay maalna weeyo jigjiyo nin saaxiibkay aan wada hadlaynay wuxuu iskuulka waxa iska leh reer hebel baa iska leh reer hebel ka sheegi maayo laakiin reer bani qurac baa iska leh isagu iskuulkani reer bani quracna male reer bani kabxanna male reer bani dhuurna male gobolka Shabeelle ayaa iskuulkan iska leh cid laga leeyahayna maanta ma ay jirto cid dhaqaale ku raadinaysa oo waa bareefad ama bareefad wax idinka soo galaalana maanta ma jirto taa horta ku bishaaraysta waxaan diyaar u nahay caawimaad mooyeene ganacsatadana aan ku wada hadalnay iskuulka iyo awooddiisa in la tayeeyo dhammaanna shacabku ay qaybihiisa kala bedilan
ay iskuulka xaaladiisa la socdaan qaybna ka noqdaan idan marka ummadda waxaa looga baahan yahay oo rabaa mar kale inaan ku baaqo inaad ogaataan difaacataan hadduu dhib yimaado sida waaga dhoweydoo kale in iskuulkii aad difaacataan waa iskuulkiinnii laakiin waa inaysan dhicin sidii soo dhacday oo qof siyaasiya hadduu isagu dan leeyahay suldaanku ama ugaasku waa inuu qadiyadda dalka iyo dadka u istaago ugaasku iyo suldaanku waxay hoggaan u yihiin waxay madax dhaqameed u yihiin ummadda shacbiga ah ay matalaan danta ummadda shacbiga ay matalaanna waa inay ka shaqeeyaan ka hadli maayo wixii soo dhacay iyo diilqaafkii salaadiinta qaar ka soo dhacay markii xilligayada la soo maray kuna qaban mayno waayo xilligaasaa wuxuu iska ahaa xilli iska barakaysan anugu waa xilli rafaasan buu hadhiib mahaye xilli barakaysan oo la soo maray buu iska ahaa idan marka waxaan caddaynaa iskuulka inuu sidaaya baahiyaha marka iskuulka dhismaha keliya ma aha waxaa ka mid ah iskuulku magaalada uu ka soo yar durugsan yahay walow qaarkeed hadda uu dhaafay gaadiid buu u baahan yahay macallimiinta iyo carruurta ay ku yimaadaan waxaa naga go'an hadda 2 bilood mise 3 bilood baa ka hadhay semesterka hadda iskuulka sanadkii inuu maarta la xidho sanad dugsiyeedka hadda bilaabanaya oo iskuulka insha Allah tacaala hoose dhexe uu yeelan doono oo dhammaan iskuulka aan furi doono galaasadiisa kala bedelan iskuulka gaadiid uu leeyahay inuu jiri doono oo carruurta iyo macallimiinta u adeegi doona insha Allah tacaala si voluntary ana ugu shaqayn doon hadii la ilaah oo iskuulka carruurta gaadiid loogu talagalay baa jiri doona sanad dugsiyeedkana insha Allah tacaala la kowsan doona hadii ilaahay yiraahdo biidni illaahi albaari taasina waa qodob aan kolka hore ahidina sheego oo ka tagay oo dib ugu laabtay waxaan ku soo koobayaa reesha beelow yaan la isxamanin cidda qabta iskuulkaas inay madaayifo gooni leedahay ama qabiil gooni leeyahay maanta halkan uu ka cadeyn doona ha ka cadeeyo si aan uga shaafino jirada iyo cudurka ku dhacay waxaan leeyahay marka iskuulkan gobolkana iskale magaaladana iskale muslimiinta guud buu ka dhaxeeya cid gooni u sheegan kartana ma jirto annagu hadda waxaan nahay mu'assisiinta iskuulka gacanta ku haysay haddaad noo bogu weydaan idinku intaad keensataan dadkii idiin wadi lahaa iskuulkaas ama ganacsato ha noqoto ama salaadiin ha noqotee la wareega oo gacantaan idinka gelin oo annaga farahaba nooga bixiya haddii tuhun uu jiro wey waxaan marka ku soo koobayaa dhammaan jaaliyadaadka muslimiinta ee caalamka ku nool daafaha adduunka ku nool kelimadeydana ay ku wajahan tahay iskuulkaas iyo ismihiisa inay ka qayb qaataan dhammaanna insha allahu tacaala inta badan waa la tegi doonaa waddamada hadday noqoto north america iyo hadday noqoto australia iyo hadday noqoto yurub iyo hadday noqoto south africa ama africa idaylkeed iyo hadday noqoto khaliijka iyo carabta oo qaarkood hadda aan soo maray anigu waa la tegi doonaa arrintaa iyada waa arrin khayriya waa sadaqa jaariya ah waa arrin manfac ummadda u leh waa qofku hadduu dhinto wax u soconaya akhriya adduunba khayr iyo wanaag iyo tarbiyana lagu hayo arrintaa iyada inaad laga qayb qaato oo jaaliyaad ka qayb qaataan deegaanka iyo hor fadhiyana ay ka qayb qaataan oo ay u dhaga nuglaadaan baaqaasaan ku soo koobayaa waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wuu difaacdaa wuu ilaashadaa ugu yaraan hadba awooddiisu intay tahay ayuu la garab istaagaa haddaad niyo fiican la garab istaagtid waxtar wey haddaad tale la garab istaagtid waxtar wey haddaad u ducaysid waxtar wey haddaabaad wax bixisana ka sii dara marka ku-celcelintani waxaa weeye dadkani inay fahmaan in ayagu iskuulkan ay leeyihiin waa sidaa wey arrinta kaloo rabo inaa halka soo qaada waxaa weeye innagu bini aadan baan nahay inayn ummad jirto noqonnona waan rabnaa bini aadamkuna ma jiri karo haddaanu wuxuu ku noolaada helin cilmina helin jiritaan xaqiiqaa ma jiri karo qofku siduu u noolaado waa inuu wuxuu ku noolaada helo ta labaad qofku siduu bini aadam fikirayo oo wax garanayo u noqdo waa inuu cilmi helo haddii qofka aan wax la barin xayawaanka ugu xun buu noqonaya xayawaanka ugu xun buu noqonaya xataa xoolaha waa kasii caqli daraanaya
حيال إله بحول إن إلا كالأنعام بل هم أضل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا إنما يخشى الله من عباده العلماء حوي بني آدم كهدان وحبرنين وحلاقهم بنقنين وحنفل يا تصالح حتى ما أنت إني نوقف لنتها بيقولوا يمكن أسكو صور نقول شاب يلا بنت أنا نروح قاقين مقالدين المركان أدنى 10 سنة أما 5 سنة كهر waxaan jirin baa maanta jira maanta maxaa la kadeedanahay waa wada garanaysaa waxa la kadeedanahay waa ciyaalkeena waa la kadeedanahay waxa way China group ciyaalkaasi meel kale kama imaanin wax barasho la'aan baa ku dhacay akhlaaqdoodii baan la dhisin xiriirka ay bini'aadamka la yeelanayaan bayna fahmin xiriirka ilaahay la leeyihiin bayna fahmin waa noloshii bay ka dhaceen marka inay wax qaribaan ma wax kale ma garanayaan maanta waxay joogaan shalay waxay joogeen in ayagu ay islaalaayaan hadda waxay bilaabeen dadka inay dhacaan berrina waxay gaari haduusan ilaahay inoo kaalmaynin innaguna aynaan dadaalin inay wax dilaan waana bilaabeenba hadda inay wax dilaan waxaas wuxuu ka imaanayaa cilmi darro waxa ugu weyn ee ay tahay maanta inaan qabanno waa inaan jiilkeenna soo socdo badbaadino waalidiin baynu wadanahay dhammaanteen xil baa ina saaran waxa kaliya oo ciyaalka lagu badbaadin karana waxa weey waxbarasho inay helaan waxbarasho way jirtaa oo dawladdu waxbarasho way bixisaa laakiin ma ku filan tahay ma kuma filan laba sib oo kuma filan waxbarashada dawladdu waxa weey manhaj siyaasadda iyo sistemka dawladda waxbarashadu ma ogolo in tarbiya lagu bixiyo iskuulada dawladda laakiin dawladdu waxay ku ogolaatay in aad iskuul private samayso oo aad tarbiyadana ku dhisto sababta kaliya oo ciyaalkeena ku dhisi karno waxbarashadooda adduunyadooda aakhirada waxa weeye inaan iskuulo private oo tayo la'aan sameeyno iskuuladana iskama imanayaan haddaan nafta hor la sameeyo haddaan jeebka gacanta la gelinin ma iskama imanayaan kuban hadda ka hadlaynaa ka kaliya inaguma filno waxaan rabnaa walaalayaal inaynu jiifka ka kacno in aan dadaalo oo ciyaalkeena sida ugu badbaadin lahayn ka shaqeeyo hadda inaga reer Shabeellaha ma wada hadlayno qof kasto inaga mid ah ilmihiisa meel u diri karo oo uu ku aamini karo waa inuu maskaxdiisana geliyo maalkiisa geliyo muruqiisa geliyo arinta aan rabno inaan idin sheegno in imaam Shaafici uu garab istaagay ilaahay qasida xagga tayada sheekhu ugu soo riixay iskuulka taya ahaan waxa ku filan iskuulka laba manhaj buu bixiyaa hadii maadooyinka dawladda ay bixiso dhammaan wuu bixiyaa waxaa kaloo bixiyaa tarbiyana wuu bixiyaa ilaa 5 maado oo diin uu bixiyaa arinta hadda ugu muhiimsan ee raadinayna waxa weeye haddaan xisaabtii iyo physics iyo biology iyo chemistry hadda ciyaalka ka dhisno waa inaan ka dhisno mataqaanaa sidaas oo kale akhlaaqdiina waa inaan ka dhisno oo maadooyinka diiniga ahaa u baahnaa ay ruuxda u baahnayd inaan siino halkaan u socono waa halka inaan nala fahantaan baa doonaynaa inaad nagu soo biirtaan baan rabnaa kan inaad hadda nala garab qabataan baan rabnaa kuwa kalena inaad isla dhisnaan rabnaa haddaba sidii loo sheegay kuwa haddaba shaqeeyaa jira ugu yaraan ilmaha haddii maalinkii rabbigii wax looga sheego way anfacaysaa Shabeellaha jira ardada hadda noo timi ee imaam Shaafici timaada kuwa Shabeella ka soo baxay waa fahmaan waana la qabsadaa laakiin kuwa iskuulada kale ka yimi inta badan lama qabsanaya waa ka dhacaya arrintan marka waa soo koobi aad iyo aad badan mahadsantihiin waqtiga xil iska dambe weeye waxaan rabnaa inaad nagu soo biirtaan na garab qabataan sanadkan bilow baan nahay laakiin diyaar garow waa sanadkan soo socdo dugsi saraan dhigaya iskuul baan dhigaya iskama imaanay waa inaad qalabkii u dhamaystirto facility-ga dhamaystirto kiimikooyinkii iyo daawooyinkii loo baahnaa dhamaystirto waa inaad soo daba gasho waalidku waa inuu soo daba galo hadda waxaan aragnay dhibaatooyinka aan la kulannay waa laga yaabaa waalidiinta qaar inay joogaan dhibaatooyinka hadda aan la kulannay waxaa waalidku kula soo hadlay ilmi maanta wax xanuunsaday fasax uu baahan yahay asaga ku difaacayaba meesha la rabo ilmaha inuu mataqaanaa sidaana waxbarasho kuma socon doonayso tayana kuma yeelanayso marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkaan kaalmadiina u baahannahay bal dibadda xagga hay naga joogaan dadka dibadda waxay nagu soo biirinayaan
الله بركه لكن إننا ملكيلياله إنه محان قشرنا هالكن إنه هالكن محان قشرنا حاطينا إنه قشرنا قفنا آدم وهو ملك الكيم أما همدوا بعد أما عصاده ملك مجاري مرك إنه عن برم إن نولانو إنه عن برم إن إسكينو يساوون ككاستونو تذكر إنه ونسيان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كعنت سارة أيها كفي عن كخير بدك عنت حوسه أنت أرجع هو فنس واحد جرو متي ولكنها هذا كان عبد الرشيد وما لها يركض جوج أنت عبد الرشيد سوينه واحد وين مجرو أنا